kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Rooble oo go'aankii ugu weynaa caawa ku dhawaaqaya iyo mucaaradka oo dib loogu celiyay qaar kamid ah xubnihii ay cabashada ka qabeen ee ku jira gudiyada doorashada maamul goboleedyada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo si cad u diiday in ay soo magacaabaan gudiyada doorashada haddaba halkee ayuu iska qaban laayahay heshiiskii Afisiyoni xogo iyo warbixino ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah dawladda federaalka Soomaaliya oo bilowday qorshe la yaab leh oo ay shacabka ku weydiisanayso dhaqaale kadib markii ay sheegtay inay wajahayso dhaqaale la'aan daran yaa loo soo dhiibay qorshahan muxuu ka og yahay madaxweyne Farmaajo sideese arrintan ay uga falceliyeen shacabka Soomaaliyeed qodobada kale waxa kamid ah xog cusub oo laga helay xubnaha midowga murashaxiinta oo bilaabay qorshe ay ku dhisanayaan isbahaysi ku dhisan qabiil sidee bay u kala safteen murashaxiinta liiska ay kala galeen ayaan xog idinkaga haynaa iyo wararkii ugu dambeeyay qarax culus oo maanta ka dhacay Muqdisho intee buu leeyahay qasaaraha ka dhashay qaraxaas yaa salala beegsaday waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 5 bisha 6 ee June sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaanu ku bilaabaynaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa la filayaa inuu ku dhawaaqo go'aan weyn oo ku saabsan arrimaha doorashada gaar ahaan fulinta heshiiskii doorashada ee Muqdisho ay ku gaareen xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada wararkan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in guddiga heer wasiir ee xaqiijinta cadeymaha xubnaha ee ku jira gudiyada doorashada ee cabashada laga keenay ay maanta ilaa iyo caawa kulamo isdaba joog ku lahaayeen magaalada Muqdisho iyaga oo lagu wado inay ku dhawaaqaan xubnaha laga saarayo guddiga doorashada ee ka kooban 67 ay soo gudbiyeen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa in uu markaasi shir jiraa'id caawa ku qabto magaalada Muqdisho isagoo arrimahaasi si faahfaahsan kaga hadlaya xogo aan helnay ayaa waxay tilmaamayaan in guddiga heer wasiir ay go'aan ku gaareen in la bedelo ilaa iyo 45 xubnood oo ka tirsan 67 xubin ee cabashada laga soo gudbiyay waxaana dib loogu celinayaa inta kale ee soo hartay xubnaha mucaaradka oo loo sheegayo in dadkaas dhaliishu aysan qaban guddiga ayaa Ra'iisul Wasaare Rooble waxa la sheegay in uu gudbin doonaan go'aan kama dambays ah oo arrimahaasi ku saabsan si Ra'iisul Wasaaruhu uu u soo saaro war saxaafadeed ama ugu yaraan shir jiraa'id uu qabto guddiga shaqadoodu waxay tahay in ay iyagu baaraan xubnaha cabashada laga keenay ee ku jira gudiyada doorashada dalka xogaha kale aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo iminka saaxiib la noqday mucaaradka uu ku qancin doono siyaasiyiinta ee mucaaradka ah in ay aqbalaan warka ay soo saareen ee gudiyada doorashada ee ku saabsan in 45 xubnood laga bedelo 67 xubin ee ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta mucaaradka ah si gaar ah 67dan waxa 61 kamid soo gudbiyay murashaxiinta mucaaradka ah inta kale ee soo hartana oo ilaa iyo 6 ahna waxa ay ka kala yimaadeen cabashadooda guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya haddaba waynu idin soo gudbin doonaa wararka ku soo kordha go'aanka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo caawa isagu go'aan xasaasi ah soo saari doona iyo waxa laga bedelo qorshahan iminka ay wadaan guddiga heer wasiir ee Ra'iisul Wasaaruhu dhawaan u magacaabay kuwaasi oo iyagu loo xil saaray xaqiijinta cadeymaha xubnaha cabashada laga keenay ee ku jira gudiyada doorashada ee dalka qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan sidii wararkeenii hore aad ku daawateen maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubbaland waxay soo gudbiyeen gudiyada doorashada halka maamul goboleedyada taageersan dawladda federaalka ah aysan weli iyagu soo gudbinin sidoo kale wararkeenii hore waxaan idinku soo gudbinay in saddexdan maamul dacwad ka dhan ah ay u gudbiyeen Puntland iyo Jubbaland Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble haddaba warar kale oo aan helnay ayaa waxay sheegayaan in xubnahan saddexda ah ay iska diideen inay soo magacaabaan gudiyada doorashada heerarkiisa kala duwan heer federaal iyo heer dawlad goboleed kuwaasi oo ka mid noqon lahaa guddiga doorashada ee ka shaqeyn doona doorashada dalka ka dhacaysa sanadkan
madaxdan maamul goboleedyada kala ah Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyagu weli soo magacaabin gudiyadii doorashada. wararka aan helnay oo lagu kalsoonaan karo waxay sheegayaan in aysanba Axmed Madoobe waa Axmed Qoorqoor lafta gareen iyo Guudlaawe aysan diyaar u ahayn magacaabida gudiyo cusub, balse ay bedelayaan xubnaha la xaqiijiyo in ay kamid yihiin shaqaalaha dawladda iyo ciidamada, isla markaana ay ka dhursugi doonaan go'aanka caaw soo bixi doona. qaar kamid ah madaxda saddexdan maamul goboleed ayaa laga soo xigtay inay kaliya bedeli doonaan xubno kooban haddii xaqiijin loo helo oo xafiiska ra'iisul wasaaraha cadeymo u keeno inay kamid yihiin ciidamada amaba shaqaalaha dawladda federaalka ah. Puntland iyo Jubbaland oo hore u magacaabay gudiyo doorasho ayaa dib u soo magacaabay gudiyo cusub kadib markii heshiis kale Muqdisho lagu gaaray. waxaa kaloo qaybtii ku soo aaday soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare, laakiin waxay wararku sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu uu cadaadis kala kulmayo madaxtooyada Soomaaliya. warqad TV ayaad nagala socotaan. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliyana waa daawanaysaan. waxay naga xasuusinaa in wararka ku soo kordha arrimaha doorashada aynu idiin soo gudbin doono haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo. iminkana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday qorshe la yaab leh oo ay shacabka ku weydiisanayso dhaqaale kadib markii dhawaan dowladdu ay sheegtay in sagxadda ay joogto. qorshahan waxaa wada wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana wax ka og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa loo soo dhiibay qorshahan isaga oo bilaabay in ololahan uu ku baahiyo barta uu ku leeyahay Facebooka, isaga oo boor ay ku xardhan yihiin akoomo isagu soo daabacay isla markaana dalbanaya in la taageero dowladda federaalka dhaqaalana lagu taageero. wasiirka ayaa fariimo muuqaal ah oo lacago qaaraan ah looga dalbanayo qurbo joogta Soomaalida ee u marinaya warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo qarash lagu bixiyay. waxa uuna sidoo kale soo dhigay bogga uu Facebooka ku leeyahay. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo marar badan ka hadlay kororka dhaqaalaha iyo canshuuraha dowladda ayaa bishii Abriil shaaca ka qaaday inay dowladda federaalku marayso meel halis ah oo sagxadda ay taalo markii ay dhaqaalaha ka joojiyeen deeq bixiyaasha u badan reer galbeedka kadib khilaafkii doorashada ka dhashay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isagu soo qoray akoomo ilaa iyo ka kooban 5 akoon, kuwaasi oo iyagu kamid ah akoomada Soomaalidu ay sida weyn u isticmaasho. waxa uuna dadka Soomaaliyeed ku sugan qurbaha iyo kuwa dalka joogaba uu ka dalbanaya in la taageero dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. si gaar ah fariintan waxay ugu socotaa dadka ku nool qurbaha oo malaha dowladdu ay ku tabayso lacago iyada oo laga dalbanayo in ay soo taageeraan dowladda federaalka ee Soomaaliya, si gaar ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dhammaan sidii dib u hagaajin iyo dib u dhis loogu sameyn lahaa militariga Soomaaliya. haddaba lama oga sida wasaaradda maaliyadda u maareyn doonto qaaraanka ay doonayso inay dadka Soomaaliyeed ka aruuriso, iyadoo guddi uu July 2017 sameeyay madaxweyne Farmaajo oo loogu magac daray taakuleynta ciidamada qalabka sida aan la ogeyn meel ay ku dambeeyeen, iyadoo lacago bilow ah loogu deeqay xilligaasi. waxaa sidoo kale xusid mudan in haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya muddaxileedkeedii uu dhammaaday isla markaana dalka doorasho uu ku jiro. dad badan ayaana isweydiinaya in lacagahan la musuqi karo. sidoo kale lama oga sida dadka Soomaaliyeed iyagu dowladnimada jecel ay uga jawaabi doonaan baaqa dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse waxaa la aaminsan yahay in dadku ay si mug weyn leh uga jawaabi doonaan baaqan ka soo yaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxa qaybaha dambe ee wararkeena ayaynu isla soo gaarin. markaana xogo gaar ah oo helay warqad TV ayaa waxay sheegayaan in xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah ay bilaabeen qorshe ay ku dhisanayaan golo isbahaysi oo ku dhisan qabiil. warar aan ka helnay xubno ku dhow midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa waxay sheegayaan in goluhu haatan uu bilaabay qorshe kale oo cusub oo ku saabsan in siyaasiyiinta isku haybta ah amaba isku qabiilka ah ay dhistaan golo ay ku midaysan yihiin, taasi oo ka saacidaysa in doorashada marka la guda galo ay iscaawiyaan amaba ay codadkooda isi siiyaan. qorshahan ayaa haatan waxaa la sheegay in uu bilaabay siyaasiga rugcadaaga ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu qorshahan si weyn gadaal uga riixaya.
waxaa isbahaysigan ee cabdiraxmaan cabdishakuur kula jira oo ay isku heeb yihiin cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee maamulka galmudug iyo weliba sidoo kale siyaasiga la yidhaahdo cabdinaasir oo isagu dhowr jeer xilal kala duwan isugu soo sharaxay soomaaliya. saddexdan iyo weliba sidoo kale shakhsiyaad kale oo aan ilaa iyo haatan la shaacin ayaa dhistay golo ku dhisan qabiil iyaga oo doonaya in doorashada soo socota ay kula loolamaan madaxweyne farmaajo. sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in siyaasiyiinta kale ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyaguna samaystaan isbahaysi kale oo qabiil ku dhisan iyaga oo wadan doona amaba ku darsan doona liiskoodaas siyaasiyiinta kale ee ku heybta ah. lama oga siyaasiyiinta kale iyagu miisaan kale balse aan siyaasiyiin badan ku lahayn midowgan sida ay isbahaysigaas iyaguna u dhisan doonaan amaba ay qayb uga noqon doonaan. ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee qarax khasaare dhaliyey oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho. qaraxan ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah waxa uuna ka dhacay meel u dhow isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka isgoyska Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho. qaraxan jugtiisa oo laga maqlay xaafadaha ku dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo 8 qof oo la geeyay cisbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxan ay ku dhinteen ilaa iyo dad markaasi gaaraya 5 ruux sida wariyaal goobta tagay ay markaasi soo tabiyeen. dhinaca kale waxaa la sheegay qaraxan inuu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa isla markaana uu beegsaday meel maqaaxi ah oo ay fadhiyeen dad shacab ah oo waxba galabsan halkaasina uu isku qarxiyay. saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay meel ay ku badnaayeen dad shacab ah isla markaana gaadiid BL ah ay halkaasi sidoo kale isticmaalayeen. burbur xoogan ayaana ka dhashay goobta uu qaraxu ka dhacay balse dhibka ugu weyn waxa uu soo gaaray dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. sidaan oo kale ayay dhowr jeer magaalada Muqdisho uga dhaceen qaraxyo ay ku dhinteen dad shacab ah mana jirto qaab looga baaqsan karo oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku xakameyn karto qaraxyada sida joogtada ah uga dhacaya magaalada caasimadda ee Muqdisho. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamida intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.